السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيرت دمانتي والسلامي ولكن محمد جامع. سؤال إن بدأ يقول صلى الله بتي أيامهن أي دون إن شاء الله تعالى إن كجوابه سؤال شاس information فربضان أي كبحن دونا سؤال شاس إنه حكوا سابسن هاي ستوك ماركت صوماليا مكشقية دي أن صوماليا تشوجنا قاب كي وش قيسن كره ستوك ماركت سؤال شا جوابتي إذا إن شاء الله فيديو جن أي إن شاء الله كسوكوبيا إن شاء الله تعالى information فربضان أي تكلم بحدون سودوا هذا خيرت. تينا بلابن أخيرته وحنا قاعد صنية إن لايك يشير سبسكرايب إنه صار تان شانلك هدي أتقول عصب تهينا وحكوليه سودو ولا أنت بدن وحققها هذا شانلك وحيابها عالمك فاينانشلك على قدر الله قارهان كريبتو كارنسيجا إن شاء الله تعالى وحفر بدن أيد فائدة دونتان زي نفهم الستوك ماركت كوحي هاي مركه هو إنه نفهمه أساسياتك الستوك ماركت محوي هاي محوك كوبي هاي شركة ذا كتير محيك ليهين iyo macluumaadkaas oo dhan stock market waxa looga jeedaa sahmiyada shirkadaha ee caalamka shirkadahaas oo hadii example ahaan ka soo qaad Apple, Google, Facebook aynu waxay soo saaraan ay isticmaalno kuwaas ayaa laga qayb qaataa oo laga noqdaa wax la dhahdo shareholder kaas inaad shirkadii adigu aad mulkiila aad ka tahay marka shareerka shirkadaha runtii di aynu soo koobno oo wax yaro simple oo la fahmi karo aynu ka dhigno waa qaabka qaabkan suuqa loo galana runtii waxa la isticmaalaa platformyo kala duwan insha Allah platformyada waan ka hadli doonaa iyo inay Soomaaliya ka shaqeeyaan iyo inaanay ka shaqeyn haddaynu isla eegno suuqan stock market-ku wuxuu yahay kaalinteeba ku jira caalamka lacag intee leeg baa ku jirta haddaynu ka hadlayno stock market-yada caalamka runtii ka Mareykanka ayaa u weyn asagana hantida ugu badan ay ku jirta waxa ku jirta suuqa waddanka Mareykanka hanti ku dhow imaka 46 trilyan oo dollar runtii waxa weeye number aad iyo aad u weyn waana stock market-ka caalamka u weyn amba suuqa sahmiyada ee caalamka u weyn طبعا suuqyo kale waa jiraan sida China, Japanka, Sacuudiga wadan walba waa leeyahay stock market-ka u gooniya marka Mareykanka u caansan Mareykanka maartay hantida ugu badan ay ku jirtaa marka kaas ayaa inta badan ay dadku ay danayaan runtiina ayaamahan Soomaalidu si waalan ay ugu daateen oo meel walba su'aasha stock market-ka qaabka loo galaa waa sidee oo su'aashaasi runtii in far badan bay soo laalaabatay haddaba haddaynu ka jawaabno imaka su'aasha ah stock market-ka waddanka Mareykanka qaabkee baa loo galayaa oo Soomaaliya ka shaqeeyaa jawaabteedu runtii waxa weeye may kama shaqeeyo waddanka Soomaaliya waayo Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladaha aan loo ogolayn in dadkooda amba shacabkoodu inay ka qayb qaataan sahmiyada waddanka Mareykanka runtiina taasi waxa weeye arrin aad iyo aad u xun laga yaabo mustaqbalka in Soomaaliya laga saaro xayiraadda amba wadamada aan loo ogolayn inay waddanka Mareykanka sahmiyadooda ay ka qayb qaataan insha Allah taala waxaan rajaynayaa su'aashaas inay jawaabteedu waadix ay noqoto runtii kama shaqeeyo waddanka Soomaaliya dadkan garamaya waxa loo wareerinayo ee maalin walba loo leeyahay stock market-ka gala oo ka shaqeysta laakiin mid kale ay insha Allah taala inuu weysiinaya khayrta Soomaalida joogta sida wadamada Djibouti oo kale Kenya oo kale Ethiopia oo kale waa gali karaan oo waa ka shaqeysan karaan laakiin shardi waxa ah inuu qofkaasi uu haysto sharciga waddanka Kenya waddanka Djibouti waddanka Ethiopia oo kale marka taa haddii qofku uu haysto waa gali karaa oo waa ka shaqeysan karaa su'aal kale ayaa imanaysa iyaduna oo muhiima oo ku saabsan haddii walaalkay uu joogo wadamada aan imkaan sheegay ma ii furi karaa amba qof aanu qaraabanahay taa runtii inaguma talanahayn laana waxani waa hanti mar walbana waxa wanaagsan inaad adigu aad maamulatid hantidaada oo qof kale aanad u dhiiban taana runtii waan naga digayaa oo cryptocurrency-ga xitaa dad far badan ayaa jira oo yidhaahda baasboor ma haysano ee qof kale baasboorkiisa ma ku furan karnaa exchange-da iyo qaabyada maaragtay loo isticmaalo amba sayladaha laga dhex iibsado cryptocurrency-ga insha Allah akhyaarta taa ha sameynina weligiin maadaama wixii ay hanti ay tahay oo bari profit wanaagsan uu ka dhalan karo taasi caqabad bay noqon kartaa oo qof qaraabada ah mustaqbalka shaygaas wuxuu noqon karaa shay runtii lagu dagaalamo amba dhibaatooyin keena marka mar walba hantidaada adigu maamulo hantidaada adigu ka warhay hantidaada adigu mar walba gacantaada waa inay ku jirto su'aal kale ay imanaysaa imaka oo ah haddii Soomaaliya aan joogo VPN iyo waxyaabaha la mid ah ma isticmaal karaa runtii waa may eeduna oo VPN-kan hadhow markaad iska diiwaan gelinaysid platformyada brokerska de waxay ka dalbanayaan sharcigaagii addresskaagii meesha joogtid iyo informationadaas oo dhan marka hadhow xitaa haddaad isticmaashay VPN wax faa'iido ah oo ay keenaysaa ma jirto walaalaha ku nool wadamada Afrika kale sida sheegay Ethiopia Djibouti Kenya iyo wadamada xitaa la mid ah sida Uganda oo kale walaalaha wadamada jooga ee sharciyada dawladaha haysta runtii waa gali karaan iyagu broker ayaa jira ay isticmaali karaan kuwaana insha Allah gadaalba ka sheegi doonaa kuwa yihiin iyo walaalaha jooga iyagu sida waddanka Mareykanka iyo Canada iyo Australia iyo wadamada kale ee Yurubta ah insha Allah iyagana kuwa ku habboon ee wanaagsan ay ka isticmaali karaan dawladaha insha Allah taala wayni sheegi doonaa haddii aynu ku bilowno waa inuu ka eego marka hore waddanka uu joogo inuu shaqeynayo iyo inaanu shaqeynin soo halkan ku aragno dawlado fara badan ay ku qoran sida Angola kale ilaa hadda ku rooyahay Djibouti oo kale waa ka shaqeynaya
Ethiopia oo kale waa ka shaqeynaya, Eritrea, Masar, dowlado far badan ayaa jira. laakiin muhiimaddu waxa weeye qofkaasi inuu haysto jawaaska wadanka ku jira liiska. haddii aanu haysan uu doonayo jawaaska Soomaaliga inuu isticmaalo, runtii waa ku adkaanaysaa. waa inuu haysto jawaaska dowladahan mid ka mid ah. walaalaha Uganda jooga ee sharciga Uganda haysto kale iyagu waa gali karaan, account waa ka furan karaan markay halkan taabtaan open account. qaabkaas ayay isu diiwaangelin karaan. brokerada caalamiga ah ee la isticmaalo marka la doonayo in stock marketka investment lagu sameeyo amba trading, interactive broker ayaa u wanaagsan. waa kan imika idiin sheegayay. qaar kale oo wanaagsan waa jiraan sida Webull oo kale, Robinhood oo kale, Trading 212 oo kale oo wadanka Ingiriiska laga leeyahay. runtii brokeradu aad iyo aad bay u fara badan yihiin. insha Allah tacaala kuwa ugu muhiimsan descriptionka hoose ayaynu ugu soo qori doonaa iyo wadamada ay anfacayaan. insha Allah kuwaana linkiyada waad iska diiwaangelin kartaan. walaalaha Soomaaliya joogana runtii waxaan kula talinayaa in dhinaca cryptocurrency ay u soo bataan. waayo cryptocurrency waxa weeye hanti aad leedahay adigu. cryptocurrency si yaro kooban haddan u sheego waxa weeye lacagta digitalka ah oo ku dul dhisan technology la yiraahdo blockchain-kaasina runtii ayaamahan waxyaabo fara badan ay xalinaysaa. mustaqbalkana mashaakil aad iyo aad u fara badan ay xalin doontaa. marka waxaa jira coin iyo tokens wax la yiraahdo oo laga faa'iido oo hadda runtii ay tahay waqtigii laga faa'iidi lahaa. ka 4 sanadoodba cryptadu waxay martaa wax la yiraahdo 4-year cycle oo runtii waxa hogaamiya wax la yiraahdo bitcoinna waxa jira shay aad iyo aad u muhiim ah oo 4 sanadoodba dhaca, taas oo bitcoinka iyo qoditaankiisa iyo qaabka loo soo saarayo 4 sanadoodba jaa'isadda la siinayo dadka soo saaray bitcoinka ay yaraanayso. ka 4 sanadoodba adigu marxalad bay crypto ay martaa oo aad iyo aad ayaa dadku ay u danayaan oo cirka ay isugu shareeytaa. ka insha Allah tacaala waqtigii waa la taagan yahay. haddii stock market iyo meelaha aad ku wareertay ee forex iyo runtii waxaan oran lahaa akhyaarta fursad ayaad imika haysataan. waayo sanadkan ilaa sanadka 2025ka cryptadu inay meel sare ay gaadho ayaa macquula. waana waqtigii laga faa'iidi lahaa walaalaha stock marketka iyo meelaha kale ee ku wareeray iyo waliba walaalaha scamersku ay dhaceen ayaama dhaweyd lagu dhacay dadkii tradebot iyo waxyaabaha la mid ah galay. runtiina hore waan uga dignay dadka sida Lifegood oo kale iyo qaar kale oo imika socda inaanay dadku hantidooda aanay ku khasaarin oo meesha saxda ah ay soo galaan. haddii aad u baahantiin koorsyo iyo mujtamacyo cryptada u gaara oo inaga caawiya qaabkaad u baran lahaydeen cryptocurrency-ga, runtii waad nagu soo biri kartaan. description-kana waxaad ka helaysaan 3 group oo aan soo dhigay magacyadooda. kuwa ku soo bira insha Allah tacaala. haddii aad danaynaysaan inaad barataan cilmiga cryptocurrency-gana waxaanu bixinaa koorsyo runtii aad iyo aad u qiimo badan oo midna uu ku saabsan yahay asaasiyaadka cryptocurrency-ga ee qaabka loo barto iyo technology-ga ka dambaysa. waliba arrin aad iyo aad muhiim ah ayaa jira akhyaarta oo ah xaraanta iyo xalaasha cryptocurrency-ga. wax walba iyo business kasta oo caalamka la isticmaalayo xaraan iyo xalaal waa kala leeyahay. koorsada waanu bixinaa. waliba waxaanu bixinaa course ku saabsan technical analysis-ka oo qaabka suuqa loo taxliiliya ah iyo chartyada suuqyada cryptocurrency. ka insha Allah tacaala haddaad danaynaysaan waxaad nagala soo xiriiri kartaan detailska amba nambarada aad ku aragtaan shaashada. haddii aad u baahantihiin macluumaad cryptocurrency ku saabsan runtii channelka dib u raaci kartaan. waxyaabo aad iyo aad u fara badan ayaan ka hadlay aan soo dhigay amba nambarada aad ku aragtaan shaashada. khayr badan insha Allah tacaala inii rajaynaya. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.